garyaqaanka guud ee qaranka Soomaaliland Cabdisamed Cumar Maal ayaa ka hadlay saldhigga militariga dalka Imaaraadka laga siinayo magaalada Berbera waxaana uu ka waramay waxa uu ku soo kordhin doono dalka Soomaaliland. Cabdisamed Cumar Maal oo maanta qaybo kamid ah saxaafadda kula hadlayay xafiiskiisa ayaa heshiiska saldhigga militari waxa uu ka bixiyay tafaasiil sharci waxaana uu yiri heshiiskan base-ka saldhigga militari statuskiisa isagoo kooban xaaladda base-ka military heshiiskaasi Somaliland macnaha uu sameeynaya isagoo kooban waxa weey aqoonsi macnaha sharciyan marka la eego aqoonsi wax ka hooseeyo heshiiskaasi ma jiro sababtoo ah hore waxa Berbera loogu wada galay heshiis ah in la maalgeliyo dekada Berbera waxa heshiiska wada galay Somaliland iyo maartay shirkad ama company international oo DP World Organization macna company iyo Somaliland baa wada galay imiga way ka sii talaabsatay waxa wada galay dawlad iyo dawlad macna inaga oo dawladda Somaliland ah baa waxa heshiis la galay dawladda Imaaraadka Carabta waa heshiis caalami ah macnaha heshiis caalami ah markaan dawlad la galo dawladda aad la gashay macnaha uu ku xambaarsan yahay adiga horta hore politically waa recognition wax ka hooseeyo status uu leeyahay jiro waay heshiiska aad gashay labadiina dawladood buu bind ku noqonaya labadiinaba inaad maartay fulisaan wixii heshiiskaasi uu xambaarsan yahay kow midda kale inaga macnahan wuxuu inoo leeyahay waxa weey wad ogtihiino geeska Afrika ku noolaa wadamada geeska Afrika waxay caan ku yihiin colaado sokeeye colaado wadamada geeska Afrika dhaxdooda abaaro maamul xumo dawlado saaqiday waa meelaha ugu colaada badan dunida kamid ah meelaha maartay xaaladaha si ka tagayeen waxyaabaha laga bixi kara waxa kow ka ah waxa la regional economic integration isku xidhka dhaqaale ee wadamadu wuxuu xal u noqdaa dhibaatooyinka colaadaha waxa heeday dhaqaale xumada burburka dawladda ku yimaada macnaha in dawladuhu isku xidhmaan oo aan Somaliland oo kaliya nooleyn aan caalamka ku xidhanno waxay noo noqonaysaa waa opportunity weyn kow heshiiskan kii ka horeeyay ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa in Ethiopia la galo waddanka kaliya ee dawladahan heshiis caalamka la galay waxayna ku xidhanno wadamada aan geeska Afrika maartay kula noolahay maartay mandiqada waxaan kula xidhay maartay gorgortamaynaana maartay mandiqada ku nool oo ah dekada Berbera inaynu horumarino Berbera corridor wixii loo oran jiray investment lagu sameeyo deetana taasi fursadii opportunity noo siiso inaan geeska Afrika economically ku xidhanno oo interest aan ugu nool inaga yeesho kana wuxuu noo si labaynayaa inaynu haddana la mataanana kii kale mandaqada kale ee ah dhinaca kale inaga xigtay wadamada khaliijka inaynu integration la sameeyno economically deetana regional economic integration waxa isku xidhka dhaqaale ee duwalkaasi wuxuu na siinayaa status ah ama marxalad ah inaynu ka baxno maartay aqoonsi la'aantii iyo dawladihii caalamka inuu la macaamili jiray inuu kaliya meesha taagnayn ayay horta naga saaraysaa dhaqaale ahaan siyaasad ahaan horumar ahaan dhinac walba marka la eego statuska madama treaty-ga aynu la galay Imaaraadka Carabtu markiisu horaba waxa weey waa recognition heshiiskaasi haddana sidii maartay wasiirka khaarijiga inoo fasirayay wuxuu leeyahay maartay qodobo badan oo ay mid kamid ah tahay macnaha in airportka la sameeyo iyaguna ay isticmaalaan kii hore jiray maxay heeday ay kamid tahay in Berbera corridor la dhiso ay kamid tahay in dadka muwaadiniinta reer Somaliland la siiyo fursado shaqo dhinaca kale waxa uu ka hadlay xisbiga mucaaradka ee wadani oo heshiiskani ku tilmaamay mid xaraan ah oo si xukuumaddu u soo gashay aan waafaqsanayn ayaa yiraahdeen xisbiga wadani ee heshiisyada caalamiga ah waxaana uu kaga jawaabay horta sharciyan wala xisbi wala odayaal wala uqaal wala salaadiin wax kasta hadlaan heshiiskani macnaha meel maartay macna kama sameyn karo wax kasta sameeyaan laba dawladood baa wada galay waa bilateral agreement
qoseeyo labada dawladeed heshiiska wada saxeexay termiska heshiiska ku jira una inay fuliyaan ay tahay xisbi wax ka soo saaray cid baa diiday iyo wax macno la sameeyay ma jirto waana la wada ogsoon yahay maartay labada gole iyagoo joint decision wada fadhiya ay aqlabiyad 144 xubnood ku ansixiyeen oo mucaarad muxaafad bale ansixintaasina macnaha waxay ahayd in maadaama aan layna aqoonsanayn laynaga helo rabitaan ah macnaha inay Soomaaliland maartay reer u tahay oo diyaar u tahay golayaasheeda kala duwan inay horta heshiiska ogolaadaan cabdisamed ayaa sidoo kale ka hadlay in loo baahan yahay in xeerarka dalka la mideeyo isagoo soo bandhigay in maxkamadaha Soomaaliland lagaga shaqeeyo xeerarka dawladaha Soomaaliya maxkamadooda lagaga shaqeeyo institutionadina ay maartay capacity u leeyihiin inay saasoo kale fuliyaan ee xeerarka maartay maxkamaddu ka shaqeeyeen waa xeerkiisa baray waa penal court-kii 60 something ya ilaa maanta shaqeeya oo xeer dejintu ahayd inay hawsha wax ka qabato qof kasta wanaagsan oo maxkamadda la geeya waxa ka hor imanaya systemkii ba khariban wixii lagu shaqeynayay ba aad civil code iyo penal court-kii Hindiya ee 19 maartay oo oogi constitution kan wuxuu shaqada siinayaa maartay xeer dejintu siinaya marka in xeerarkeeni maartay ma administrative-kii adjudication garsoorka iyo nidaamka cadaaladeed waa in la helaa oo aan dadkeenu yeeshaa system qofka ajnabiga uu markuu yimaado ogaan karo in nafihiisa iyo hantidiisaba ay sakur maartay ka dhigeen uu jiro laakiin ma kanad xeer balhay ee Soomaaliland baa la yiraahdaa xeerka ciqaabta ama madaniga waa maxay wax kii Soomaaliya hadana tiraahdo dawladnimada ma dhabar ka jibin institution-ka u qaabilsan marka waxa weeye sidoo shaqaysi gab marka halkan aan adkayno oo legal framework system-kiina aan hagaajinaa wuxuu opportunity bixinayaa in lagu dhiiran karo oo maartay lagu aamini karo hanti iyo nafba marka meelaha challenge-ku naga iman kara waa meelaha financial system-kiina saxro aragtida ku dulnoolnimada oo meesha laga saaro shuruucda maartay waxyaabaha dhiil gareeya ama contract-ka ama agency-yada ama commercial system-ka ama business organization-ka in iyagana la habeeyo la update gareeyo oo kuwa casri la tajiyo waxa arkaysan iyadoo laga qeyliyo maartay shuruucii baanka yes with the reason why logo waxa ku jiray sharci ka soo jeeda ka saar laakiin dee samayso hadii kalma kartoon ma lagu fadhiyeenaayo sarifka lacagu baynu haynaa waa inaan horoga marka waxaan horoga baxnoonayaan oo sida caalamku u shaqeeyno deetana aan partnership abuurno oo aynu ma horo ka caawi marka meelahaas oo dhan wax weeyse sameeyo yaalo inaan ka saxna ay tahay laakiin fursadani waa fursad opportunity way waligeedaan Soomaaliland soo maray inaan economically regional integration sameeyno oo aan ku xirno dhaqaalahaan isku xirno wadamada Geeska Afrika iyo wadamada Khaliijka waa fursad aad u qaaliya aan waligeedna soo marin aan helin dawlado badan oo xitaa imga muctarifiin fursad inta leeg ma haystaan marka inaan ka faa'iideysano oo sidoo uga faa'iideysano inaga inoo taala marka taasaan ku daraya macnaha